السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى هانتين بأخيارتها وذا نقد على عنا إساي هالكني ومريق ميديا qodobada warkan ugu door korona caawin ku hayno waxa kamid ah dalka Iran oo isku dayaya saliidiisa cayrin inuu u dhoofiyo ama ka iibiyo wadamada Asia. dalka Turkigana waxa gaaray wufuud ka socota beesha caalamka oo dhexdhexaadinaysa khilaafka u dhaxeeya dalka Greega iyo dalka Turkiga oo isku haya jasiirad. sidoo kale waxaan warin ka haynaa wadanka Ecuador Guinea oo qarax uu ka dhacay oo la sheegay khasaare aad u lixaad in halkaas ka dhacay. qodobadaas iyo qodobo kale oo dheeraad ah ee barnaamijkan ku la fikir doona hadii baraale ka noqdo. isku soo noqod wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan waan ku bilaabay wadanka Iran ayaa la sheegayaa inuu u diyaar garoobayo in saliidiisa cayrin ama shidaalka cayrin uu u dhoofiyo wadamada Asia sida dalka Shiinaha iyo wadamo badan oo kale oo sida Japanka iyo wadamo badan oo kale oo la soo koobi karin. waxaa la sheegayaa Iran inay isu diyaarinayso in ay iib geyso ama soo geyso shidaalkeeda cayrin oo muddo dheer uu saaraa cunaqabatayn. dalkaasi Iran cunaqabatayn ayaa saaraa waxaana saaray dalkaasi Mareykanka, balse waxa ay haystaan Iran maanta rajo degdeg ah oo ay ka heleen madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka Joe Biden oo la rajeynayo in uu furo wada hadalkii u dhaxeeyay dalka Mareykanka iyo dalkaasi Iran. arintaasina Iran waxa ay isu diyaarisay in ay ku soo dhamaanayso heshiis taariikhi ah oo wax ku ool ah. taasina waxa ay dan weyn ugu jirtaa dalkaasi Iran oo muddo dheer cunaqabatayn saareed. dalka Iran waa dal aad u xoog badan oo ka dhisan dhinaca militariga iyo dhinaca dhaqaalahaba, balse muddooyinka ama sanadadii u dambeysay waxaa saaraa cunaqabatayn uu dalkaasi Mareykanku saaray. waxaa la sheegayaa siyaasiyiinta caalamka ee ka faalada arrimaha siyaasadda ay sheegayaan in dalka Mareykanka iyo Iran ay heshiis qadiimi ah gaari doonaan, kaasina uu u suurtagelin doono dalka Iran inuu u dhoofiyo saliidiisa cayrin wadamadaasi Asia. shirkadda qadiimiga ee dalkaasi Iran ee National Oil Company oo Iran leedahay ayaa waxa uu bilaabay inuu xidhiidh la sameeyo wadamada sida wadanka Shiinaha iyo India u suuq geeyo ama uu ka beeciyo shidaalka dalkaasi Iran oo cayrin oo uu ku siinayo beec jaban. taasina waxay u egtahay inay soo dhaweeyeen wadamadaasi Asia. sidoo kale madaxda dalkaasi Iran ayaa rajo weyn ka qaba in uu mar dhow furmi doono wada hadalkii u dhaxeeyay dalkaasi Mareykanka iyo Iran ee uu hakiyay madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump. Joe Biden ayaa la rajeynayaa in wada hadalkii dib u furo. taasina waxaa la filayaa in dalkaasi Iran ay ugu jirto faa'iido weyn oo wax ku ool ah. haddaan u leexano dhanka iyo wadamada West Africa ayaa waxaa la sheegayaa dalka Ecuador Guinea in uu qarax weyn ka dhacay xero military. halkaasi waxaa la sheegayaa dhimashadu inay kor u dhaafayso 30 in ka badan, dhaawacana in uu kor u dhaafayo in ka badan 400. goobjoogayaal halkaasi ku sugnaa ayaa saxaafadda u sheegay inay arkayeen meydad daastan wadada dhinacyadeeda oo u dhow xerada militariga. qaraxni waxa uu ka kacay xerada militariga. dhanka kale bayaan uu soo saaray TV-ga qaranka ee dalkaasi ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay in qaraxani uu ka dhacay dayac ku yimid xerada militariga ee ku tiilay halkaasi. waxaan weli la faahfaahin karin khasaaraha ka dhashay inta uu leeyahay. wasaaradda caafimaadka ayaa barteeda Twitterka ku soo qortay in halkaasi uu ka jiro dib aad u weyn loona malaynayo dadka inta la ogyahay in ka badan ee ku dhimatay oo guryaha hoostooda ay ku duugan yihiin. asxaabiyaal isla wararkii caalamkan ku jiray haddii aanu leexno dalka Turkiga iyo dalka Greega khilaafka u dhaxeeya ee ka dhashay jasiiradda Cyprus ayaa waxaa la sheegayaa in sargaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay uu maanta gaaray dalkaasi Turkiga. waxaa la sheegay sargaalkaasi inuu la fadhiistay madaxweynaha Turkiga kalena sheekaystay arrimaha la xiriira khilaafka u dhaxeeya dalka Turkiga iyo dalka Greega. madaxweynaha dalka Turkiga waa uu soo dhaweeyay sargaalkaasi waxaana laga wada hadlay oo laga sheekaystay sidii loo xalin lahaa khilaafka u dhaxeeya dalka Turkiga iyo dalka Greega ee ka bilowday jasiiraddaasi Cyprus. jasiiradani ayaa waxa ay hodan ku tahay gaaska dabiiciga oo laga helay labada wadan ee dariskiiba. mid waliba waxa uu sheeganayaa in uu jasiiraddaasi isagu leeyahay.
dhowaan bay ahayd markii dalkaasi Greegu uu sheegay ama saxaafadiisu ay qortay in dalka Masar uu qandaraas ku qaatay baaritaanka shidaalka ee Cyprus, halkaasi oo ay sheegeen Greegu in dalka Turkiga uu qandaraas ku siiyay dalka Masar inuu baaritaan ku sameeyo shidaalka halkaasi laga helay, taasina ay ku sheegaan in ay tahay arrin lama filaana.